Soomaaliya rajo weyn ayay leedahay xag dad ahaan, xag dhaqaale ahaan, xag horumar ahaan iyo xag kasta oo wadan rajo u ka yeesho. Waxaan nahay ummad dhalinyaro ah, boqolkiiba 70 wax ku dhow Soomaalida maanta waa dhalinyaro. Waxaan leenahay ilo dhaqaale oo mustaqbalkayga damaanad qaadi kara sida xoolo iyo dhul iyo bad. Waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dadka shaqeeya. Dadka ka shaqeynayana waa dadka maanta dhalinyarada ee dalka u soo kacay. Waxay u baahan yihiin in ay yeeshaan rajo weyn, inay yeeshaan han sare, inay ahaadaan hawlkar iyo in ay Ilaahay tala saartaan. Qof walba dhalinyaro ah fariin ayaan u dirayaa. Fariintan waxaan ugu dirayaa in uusan rajadiisa dhigin, inuusan hanjabin, in uu dadaalo iyo in uu Ilaahay tala saarto. Waa marka koowaad waxa loo baahan yahay qofku inuu aad u hansareeyo. Soomaalida waxa lagu yaqaanaa ama lagu yaqaanay inay ahaayeen dad aad u hansareeya. Dadkaas oo aanan kala aqoon qofkaas waa ka sareeya ama qof waa ka fiican ama ummad baa ka fiican. Hankii sare ee Soomaalida lagu yaqaanay maanta dhaawac ugu jira. Waxa loo baahan yahay dhalinyaradu inay dib u soo kiciyaan. Qofku markuu han sare yeesho waxay ku dhalisaa hawlkarnimo iyo dadaal. Waayo hanka sare wax la iska sheegto ama loo dhasho maahane wuxuu ku yimaadaa qofku wax uu qabsaday ama uu ku dadaalay. Marka koowaad qofku waa inuu hansareeyaa, marka labaadna waa inuu hawlkar yahay. Hawlkar waxaad ku noqon kartaa inaad taqaano waxa aad qabanaysid, aad yool leedahay, aad dadaal leedahay, shaqo leedahay. Marka saddexaad waa inaad ku kalsoon tahay naftaada oo aad aaminsan tahay inaad dalkaaga iyo dadkaaga iyo naftaadaba aad wax ku soo kordhin kartid. Marka ugu dambeeya oo afaraadna waa inaad Ilaahay tala saaratid. Qofka Ilaahay tala saarta isaga ku filan. Haddaba qof walba dhalinyaro ah waxaan ugu baaqayaa in uu rajadiisa kor u qaado, inuu hankiisa sareysiyo, inuu hawlkar la yimaado ama hawlkarnimo la yimaado iyo in uu Ilaahay tala saarto, naftiisana ku kalsoonaado. Intaas waxay ka caawinaysaa in aadan hanjabin, inaadan is oran maanta wadankii waa ba'ay, mustaqbalkii waa xumaaday, rajana ma jirto. Rajo waa jirtaa, fursado waa jiraan, guul weyn baa soo socota. Adiguna noqo garab iyo gaashaan dalkaaga, dadkaaga iyo diintaada.